cadaalad lagu dhaqo inaana noqon militaris isagu kala kasmada ku hogaamiyo maxkamadda ay noqoto in dhammaan sanadooyinka dawladda sida ay u kala sarreeyaan ay nuuga shaqadiisa ugu madax bannaanaan taasoo keenaysa in shakhs u hato mid dadkoo dhan ay talinayaan taas waxay badbaadinaysaa aniga badbaadinaysaa inaan khaladaad gelin idinkana way badbaadinaysaa marka ugu horreyn kolley waxyaabaa ii qodaysna wuxuu ahaa xuquuqul insaanka kow in horta wax laga qabto inaan iscafino waa muhiim inaan wixii hore ee dhacay ka tagno waa muhiim laakiin haddana dadkii dhibaatooyin ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshadiina iyaguna waa muhiim taa macnaheedu waxaa weeye iyagoo oon kuwii dhirta geystay la dhibaatay kuwii dhirta ku dhacday wax loo qabto oo maaragtay si ay bulshada ula sinaadaan waxaa kaloo xooga saari doonaa xoriyatu qowlka anugu dadka aad u qoraan ahaan jiray xoriyatu qowlka iyo maaragtay jecel maanta marka inaan gruubkii noocaas ahaa aan xorriyaddooda usii kordhiyo ayaan diyaar u ahay qof kasta innagu waxyaalaha weliba u naqaan dacaayad baa jira laakiin dunida kale industry ah lagu shaqaysto maraykanka iyo ingiriiska iyo qofku inuu madaxda faalleeyo oo dhaqankooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda wax ka sheego lacag baa lagu hela waa industry dhan oo lagu shaqaysto innaga xaggeena waxaa la yahay dacaayad baa layaa wada isxidhaa aniga dacaayadta marka horta wixii dacayaystayaalaha maanta xor baa tihin waxaa horta marka hadli kartaan laba qodob baan la ogolayn oo sida qawaaniinta adduunka iyo waddankaba ah in qabaa'il la isku dhufto oo reer hebel ka kac oo reer hebel laa la yidhaah waa la odhan karaa reer hebel baa waxbadsaday waxaas dhib male waa la odhan karaa mustaqbal meeshii yimid oo waxaa yaacaya reerkoodaa soo baxay waxaas dhib male laakiin reer hebel ku duul incitement baa la iyadu waa qalad waxaa kaloo khalad wixii diinta iyo akhlaaqda ay diidayso sawirro qaawan aflagaato ay noocaas waa reebayi wixii intaa ka baxsan wax walba waa laga hadli karaa dastuurka etoobiya laga hadli karaa ma ogolin baa la odhan karaa dalkan ka mid yihiin baa la odhan karaa waxaa la odhan karaa muxuu ahaa madaxweynuhu waa saasaa la odhan karaa shaksiyadiisa laga hadli karaa qofkii ay dambigiisu gaarsiiyo inuu dhaafo waxaa ku saabsan madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo wasiirada isaga u taalla bulshada tahay ay qabato dawladda u xakamaymayso bulshadaa qabanaysa laakiin dawladdu ma odhanayso sharaftii madaxweynaha ku xadgudubtay afrikaanka inta badan isku xidha waxaas waad ogtihiin marka madaxweynuhu dadku la mid yahay haddii adiga wax lagaa sheego waxamanayasna waa la xaman karaa taa horta inaad ogaataan dacaayadana adigaa idin bilaabaya marna inay hileeda haysto marna ina cabshir dadkii cagaha la-ayn indhaha la-ayn away odan